wax walba oo aad qabanayso si maskaxaysan u qabo. laba nin oo tuuga ah ayaa u dhacay guri qasri ah waxaana ay baareen dhammaan qasrigii. ugu dambeyntiina waxa ay heleen qasnad ay lacag ka buuxdo. labada tuug mid ka mid ah ayaa qabiir ahaa waxaana uu furay qasnadii isagoo aan jabin. lacagtii ayuuna ka soo bixiyay. miis meesha yaallay ayuu inta dul fariistay ayuu tuugii yaraa ee barbartooyda ahaa ku yiri, turubka boorsadeeda garabkeeda ku jira inoo soo bixi, waan dheelaynaaye. tuugii yaraa oo yaaban ayaa yiri, aan ka cararno meesha, haddii aad dheel rabto gurigeena markii aan tagno ayaan dheelaynaaye. tuugii qabiirka ahaa ayaa si canan ay ku jirto u yiri, anaa kuu taliya, wixii aan ku amro ayaad samaynaysaa. fur talaajadaas oo inoo soo bixi 3 dhalo oo biibsi ah iyo 3 koob. wiilkii yaraa isaga oo yaaban isna leh odaga waa uu waashay ayuu soo bixiyay turubkii waxaana ay bilaabeen inay dheelaan cabaana sharaabkii. tuugii qabiirka ahaa ayaa kii yaraa ku yiri, TV-ga daar oo codkiisa dheere. sidii ayuuna sameeyay isagoo xaqiiqsaday in la qaban doono. ninkii qasriga lahaa ayaa soo kacay waxaana uu dareemay in guriga lala joogo. horay ayuuna bastoolad u soo qaatay. tuugii ayuu madaxa uga qabtay kuna yiri, tuugayahay maxaad ka dhex qabanaysaan gurigayga? ogaada haddii midkiin isdhaqaajiyo waan idin dilayaa. tuugii weynaa isma waaline saaxiibkiis ayuu ku yiri, iska daa warkiisa ee inoo wad dhiisha. ninkii booliska ayuu wacay waana ay yimaadeen booliskii. waxa uu ku yiri, labadan tuug gurigayga ayay u soo dhaceen waana tan agtooda taal, lacagtii ay iga xadeen. tuugii weynaa ayaa soo booday, ninkani waa beenlow taliye, waxa uu inoogu yeeray si aan ula dheelno turub, waan ka guulaysanay. markii uu qasaaray ayuu la soo baxay bastoolad kadibna nagu yiri, laba kala doorta, inaad ii celisaan lacagtaydii iyo inaan booliska waco kuna dhaho waa tuugo. sargaalkii booliska ahaa ayaa eegay meesha, mase 3 dhalo ayaa taal, TV-guna waa dheeraysan yahay, nimankuna tuugaba uma eka, turub ayay iska ciyaarayaan. sargaalkii intuu ninkii guriga lahaa eegay ayuu ku yiri, gurigaada ayaad qamaar ku dhex dheelaysaa, markaad qasaartana annagana soo wicee. iska jir haddaad falkaasoo kale ku laabato, xabsiga ayaad iska dhex arkay. albaabka ayuu ka baxay sargaalkii, laakiin tuugii qabiirka ahaa ayaa ku qayliyay, taliya haddii aad naga tagto waa uuna dilayaa. sidaas ayayna labadii tuug ku baxsadeen iyaga oo nabad qaba, lacagtiina wata, booliskuna iyaga ilaalinayo.